maamulka gobolka Mudug ayaa waxa uu go'aan ka soo saaray maraakiibta iyo doomaha xaalufinta ku haya xeebaha Galmudug sidoo ku soo waramayo wariyahayaga Baashi Cali Xaashi Cabdiraxmaan Cali Diiriye isxal gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Cawaale ayaa maanta kormeer ku tagay xeebaha magaalada xeebeedka Hobyo halkaas oo la sheegay in xaaluf baan ay ku hayaan wadamo shisheeye gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Cawaale ayaa tilmaamay inay jiraan shirkado xaaluf ku haya xeebaha Hobyo taasoo u baahan in talaabo sharci waafaqsan laga qaado gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa booqasho noogu yimid degmada Hobyo runtii waxaan taaganahay degmadii xeebteedii Hobyo oo runtii kalluumaysatada sharci darada aad inoogu bateen oo muddooyinka dambe ay ka cabanayeen shacabka magaalada ama kalluumaysatada taas runtii dhibaato weyn ku haysa ewel ummadda waxay la diriri jireen burcad maanta waxa burcad kalluumaysi ayaa bilowday marka sidaas daraadeed waxaan rabnaa beesha caalamka iyo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Galmudug anagoo gudoomiyaha maarad ku marta qaadnay inuu dhiiso ku arko aan ku soo wareejino xeebta Hobyo sharci darada ka jirto inaan ugu digno dhammaan dadka sharci darada ku shaqaysanaya nooc walba ay yihiin gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye ayaa sheegay in talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan wadamada iyo sidoo kale kalluumaysatada ku howlan xaalufinta xeebaha Galmudug qaybta Galmudug cidii ka shaqaysanaysa oo Soomaaliya cid loo diiday ma jirto laakiin waxaan u baahannahay inuu sharciga soo maro ilaa heer madaxweyne soo maraan wasaaradda soo maraan gobolka soo maraan degmada soo maraan oo soo sharci ah oo la aqoonsan yahay inuu ka shaqaysto laakiin ma ogolaanayno sharci darro in looga shaqaysto waxaanu ognahay dad qabaanka ah dawladda shisheeye ama maamul goboleedka oo deegaanka Hobyo ku nool oo aanu mid u naqaano waxaan rajaynayaa inaan tilaabo ka qaadno haddii ay ka waantoobi waayaan waayo ma ogolaan doono cunuga deegaankan ku nashay ee aabihiisu u shaqo tagay in dad kale ku shaqaystaan aabihiisna wax ka waayo 6 mayl dhaaf waayo ma ogolaan karno qaar ka tirsan kalluumaysatada ka shaqaysta xeebaha magaalada xeebeedka Hobyo oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa yiri aqoonta kala kulana waxa kamid ah shirkadda marmar inay qaataan inay badda macnaha xoog soo galaan waxa kamid ah maxamed xasan waxaan ku suganahay magaalada Hobyo waxaan ahay wiil kalluumaysi Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo wixii la jiro inay ama dawladda Galmudug iyo wixii taabacsan inay naga soo gaaraan dadka oo ilaa 20 meel ilaa 8 meel ilaa 15 meel Cumaan